Washington laanta afka Soomaaliga idaacada VOA oo aad ka dhageysataan muujadaha gaagaaban iyo hirarka FM-yada magaalooyinka qaar caalamka oo dhan waxaad nagala socotaan boggeena voasomali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan waa aroornimo sabti ah bisha juun waa 5 sanadka 2021 saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo Washingtonna waa 11:00 habeenimo idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idiin soo jeedinaya Jamaal Axmed Cismaan iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan. waxaan ku sugnaa suuqa maalin sabti ah markii ay si lama filaan ah taangiyadu u soo galeen dagaalkiina uu bilaabmay waxaan ku orday gurigayga walaashayna waxay sameynaysay bun ama qaxwo waxaan ku iri waa inaan orodnaa waxaan aragnay guryo gubanaya waxaanan maqlaynay bambooyin dadweynaha gobolka Tigray ee dalka Ethiopia oo cunay yaraanba ani ay soo food saartay warbixin ayaanu idinkaga haynaa. qodobada kale ee idaacadeena ku maqli doontaana waxaa ka mid ah dilalka dhalinyarada Soomaalida ah oo wali ka sii socda dalka Canada. Britain oo sheegtay inay sare u kaceen dadka uu soo ridanaya xanuunka COVID-19 iyo qodobo kale. Marka hore warkii caalamka waxa inoo haya Jamaal Axmed Cismaan. bangiga JP Morgan ayaa waxa uu sheegay inuu hakiyay lacagihii deeqaha ee uu siin jiray siyaasiyiinta jamhuuriga ee uu codeeyay in la baabi'iyo doorashadii uu ku guuleystay madaxweyne Joe Biden sanadkii 2020. JP Morgan Chase waxa uu dib u bilaabi doonaa bixinta deeqaha siyaasadeed ee sharci dejiyaasha Mareykanka uu siiyo, laakiin ma siin doono xubnaha jamhuuriga ee Koongareeska ee uu codeeyay in la laalo guushii doorashada madaxweyne Joe Biden, sida ku xusan qoraal gudaha oo Jimcihii ay aragtay wakaalada wararka ee Reuters. Amaahiyaha ugu weyn ee wadanka waxa uu ka mid yahay shirkado badan oo joojiyay bixinta deeqaha siyaasadeed kadib rabshadihii dhimashada ee January 6 ka dhacay aqalka baarlamaanka ee Capitol Hill markii taageerayaasha madaxweynihii hore Donald Trump ay isku dayeen inay is-hortaag ku sameeyaan Koongareeska oo markaasi u codeynayay guusha Joe Biden. saacado uun kadib ayaa 147 oo jamhuuriyiin ah intooda badanna ay ka socdeen aqalka wakiilada waxay u codeeyeen in la laalo natiijadii Electoral College-ka ee uu Trump si been abuur ah u sheegay in la musuqmaasuqay isaguna uu ahaa ninkii ku guuleystay sida uu ku doodayay. dhinaca kale shirkadda Facebook ayaa waxa ay Jimcihii sheegtay in ay ka joojiyeen madaxweynihii hore Mareykanka Donald Trump isticmaalka aaladaasi Facebook ilaa iyo January sanadka 2023 waxaana ay ku dhawaaqday isbedelo ku saabsan sida ay ula dhaqmi doonto hogaamiyaasha dunida ee jabiya shuruucda shirkadda ee ku saabsan qoraalada lagu daabaco bartooda. Facebook ayaa hakiyay bartii Trump uu ku lahaa Facebook maalin kadib rabshadihii ka dhacay Capitol Hill 6 January iyagoo ku eedeeyay inuu horiyay rabshado. hogaamiyaha sare ee dalka Iran Ayatollah Ali Khamenei ayaa sheegay in Tehran ay doonayso ficil oo aysan markaasi doonayn ballanqaad kaliya ee ka imaanaya 6 dowladood adduunka oo ku aadan soo celintii heshiiskii nuclearka ee Iran ee sanadkii 2015 ay dowladahaasi 6 iyo Iran ay wada gaareen. waxaan u sheegay wadaxaajood sameeyayaasha inay la yimaadaan ficilo oo aan la rabin ballanqaadyo wadamadaasi kaliya si dib loo soo celiyo heshiiska nuclearka iyo Khamenei ku yiri khudbad telefishinka laga sii daayay. Tehran iyo quwadaha kale caalamka ayaa wada hadallo ku jiray tan iyo horaantii bishii Abriil, taasoo ujeedku yahay in dib loogu soo celiyo wadaxaajoodyada dhinacyada Washington iyo Tehran si markaasi si buuxda ay ugu hoggaansamaan heshiiska nuclearka ee Mareykanka uu ka baxay markii madaxweyne Donald Trump uu ku eedeeyay in heshiiskaasi uu Tehran faa'iido badan ugu jiro, taa beddelkeedana Tehran uu cunaqabateyn saaray. hadda ujeedku waxa uu yahay in Iran ay dib ugu laabato heshiiskaasi joojinta bacriminta waxyaabaha nuclearka lagu farsameeyo, taa beddelkeedana iyada cunaqabateynta laga qaado. Iran oo cunaqabateyntaasi Donald Trump uu ku soo rogay ka falcelinaysa waxay dib u bilowday kaydinta uranium-ta hodanka ah iyadoo si heerar sare u kobcinaysa isla mar ahaantaasina sameynaysa xarumo casri ah si loo dedejiyo wax soo saarka barnaamijka hubka nuclearka ee Iran. ururka Taliban ayaa Jimcihii qabsaday degmo ku taala koonfurta wadanka Afghanistan iyadoo aan wax iska cabina kala kulman ciidanka ammaanka ee dowladda Afghanistan. taasina waxay noqonaysaa degmadii 7aad oo ay si buuxda ula wareegaan tan iyo markii Mareykanka iyo xulafadooda NATO ay bilaabeen inay dalkaasi ka baxaan. sarkaal ka tirsan laamaha amniga ee koonfurta gobolka Zabur oo codsaday in magaciisa aan la shaacinin
ayaa u sheegay idaacadda VOA in taalibaan ay soo galeen degmada Shinkai subaxii hore ee Jimcaha kadib markii ciidanka dowladda ay dib uga gurteen halkaas. taliyaha booliiska gobolkaasi General Mohammed Wade Samemi ayaana waxa uusan xaqiijinin qabsashada taalibaan ee magaaladaasi. waxa uu VOA u sheegay in ciidamada Afghanistan ay weli ku sugan yihiin gudaha degmada isla mar ahaantaasina uu dagaal u socdo. afhayeenka taalibaan Yusuf Ahmadi ayaa bayaan uu soo saaray waxa uu ku sheegay in dagaalyahanadooda ay sidoo kale qabteen shaqaalihii ammaanka, laakiin ma uusan sheegin tiradooda inta ay gaarsiisan tahay. waxaase ilaa hadda aan caddayn sheegashada taalibaan ee ku aadan inay qabteen shaqaalaha amniga ee deegaankaas. kabixitaanka ciidamada shisheeye ee Afghanistan ayaa keentay hoos u dhac ku yimid amniga iyadoo laga walwalsan yahay rabshado iyo qalalaaso dheeraad oo ka dhaca dalka Afghanistan. warkii dunida dhegeystayaal waa naga intaa. mahadsan Jamaal Axmed Cismaan oo warka caalamka nala socodsiinaya. halkan nagala socotaana waa VOA Washington. gobolka Tigray ee dalka Ethiopia malaayiin qof oo ku dhaqan gobolkaasi dalka Ethiopia ayaa aad ugu baahan gargaar cunno ah iyadoo magaalada Mekelle oo ah xarunta gobolkaasi qoysaska barakacay waxay sheegeen inay maalmaha qaar aysan haysan wax ay cunaan, sida ay wariyaha VOA-da Heather Murdock uga soo waramaysa magaalada Mekelle. gaajadan ayaa ah mid ku timid dhibaatooyinka sii kordhaya ee ka dhashay isku dhacyada gobolka. Jamaal Axmed Cismaan ayaa noo soo koobaya. dhismahan iskuulka wuxuu hadda ka mid yahay in ka badan 20 xero oo ay ku nool yihiin qoysas barakacyaal ah oo ku dhaqan magaalada Mekelle ee xarunta gobolka Tigray ee dalka Ethiopia. in ka badan 80 qof ayaa seexda gudaha fasal kasta. qoysaska ayaa sheegaya qof walba wuxuu hayaa sheeko naxdin leh oo ku saabsan sida ay halkan ku yimaadeen. Zuvan Roma waxay ka mid tahay barakacyaasha halkan soo gaaray. waxaan ku sugnaa suuqa maalin sabti ah markii ay si lama filaan ah taangiyadu u soo galeen, dagaalkiina uu bilaabmay. waxaan ku orday gurigayga, walaashayna waxay sameynaysay bun ama qaxwe. waxaan ku iri waa inaan orodnaa. waxaan aragnay guryo gubanaya, waxaanan maqlaynay bambooyin. barnaamijka cunnada adduunka ayaa sheegaya in ka badan 5 milyan oo qof oo ku dhaqan gobolka Tigray oo 90% dadka gobolka ay u baahan yihiin gargaar cunno oo degdeg ah. laakiin xitaa halkan Mekelle halkaasoo gargaar laga heli karayo dadku way gaajoonayaan xilli la joogo gelinka dambe. xeradan qoysas badan ayaa sheegaya inaysan weli waxba cunin. taasina ma ahan wax cusub. hogaamiyaasha deegaanka ee qoysaska soo barakacay waxa ay sheegayaan dadka halkan degan wax walba waa ay ku yar yihiin. Gezu Tadeze waa mid ka mid ah hogaamiyaasha deegaanka. waxaan la kulannaa dhibaatooyin badan, ma haysano cunto nagu filan, hoy, qalabka hurdada iyo dharka. dagaalkii ka hor waxaan quudin jirnay carruurteena 3 jeer maalinkii, laakiin hadda ma awoodno. colaadda ka taagan gobolka Tigray ayaa bilaabatay bishii November ee sanadkii hore markii ciidamo ka socda dowladda Ethiopia loo diray gobolkaasi si ay u burburiyaan xoogagga jabhadda xureynta dadka Tigray ee TPLF. hadda qiyaastii 2 milyan oo qof ayaa lagu qasbay inay ka barakacaan guryahooda. 10 qof ayaa la dilay. qaar badan oo ka mid ah sida wiilka Zufan oo 12 jir ah ayaa dhaawacmay. Zufan waxay sheegaysaa in wiilkeedu gacanta ka dhaawacmay xilli ay colaadda ka baxsanayeen, waxaana ay ku qaadatay bilooyin inay gaaraan magaalada Mekelle si loogu soo daweeyo. waxaan u tagnay dhakhtarka shalay, wuxuu yiri xagee jirtay. wuxuu u baahnaa qaliin, laakiin hadda waad soo daahday. waxaa xirada ku jira caruur waalidkooda aan la socon iyo waalidiin aan caruurtooda la socon, kuwaas oo ku waayay qalalaasaha sida ay Zufan sheegayso. inkastoo wiilkeeda uusan weligiis gacantiisa si buuxda u adeegsan doonin, haddana waxaa jira hooyooyin kale oo badan oo caruurtooda ku waayay colaadaas. mahadsan Jamaal Axmed Cismaan oo warbixintaasi nala socodsiinayay. xafiiska tirakoobka qaranka Britain ayaa xog ururin uu sameeyey waxa uu ku sheegay in tirada dadka uu ku dhacayo xanuunka COVID-19 uu kordhay ilaa 3 meelood 2 meel. 100,000 oo qof ayaa la sheegay in xanuunka laga helay ilaa 29 bishii hore ee May. toddobaadkii ugu horreeyay tirada dadka laga helay waxay ahaayeen 60,000 oo qof. kadibna dadkan waxaa la sheegay in badankood ay ahaayeen kuwo laga helay cudurka nooca dalka Hindiya ku faafaya oo dalkaasi Ingiriiskana soo gaaray. warbixin arrintan la xiriirta waxaa London ka soo diray wariyaha VOA Cabdixaafid Cawl Ismaaciil.
tani waxay u dhigantaa koror ballaaran dadka xanuunka qaadaya laakiin waxa yar dadka iminka xanuunka u dhintay iyo dadka cusbitaalada la geliyo ta kale marka loo eego meelaha xanuunku marayay dhowr bilood ka hor xaaladdu ma xuma si kale haddii loo eegana waa dib u dhac weyn oo iman kara 21 bishan Juun dawladdu waxa ay ku tala jirtaa inay dhammaan qaado xayiraadaha dalka saaran in la furo isu socodka caalamka wadamo badan ayaa laga qaaday liidka khadka cas dhaqaalihiina uu soo kobcayay haddii dadka xanuunku ku dhacay ay sii kordhaan wax badan oo hore qorshaysnaa way isbedeli doonaan jimcihii shalay dawladdu waxay sheegtay in 6287 qof oo cusub uu xanuunku soo ritay 945 qof ayaa cusbitaalada la dhigay waxaana u dhintay 11 qof ra'iisul wasaaraha Britain Boris Johnson ayaa ka dhaga adeegaya saynisyahano u soo jeediyay in aan xayiraada la wada qaadin 22 bishan wasiirka koowaad ee mandaqada Scotland iyadoo toddobaad ayay dib u dhigtay oo go'aankaas waa ay qaadatay warwarka ugu weyn ee iminka laga cabsi qabo waxa ka mid ah dhaqaalaha iyo in la hakiyo furitaanka shirkadaha dalxiiska saameyn intee leeg ayaa ku imanaysa kobaca dhaqaalaha haddii tirada xanuunku ku dhacaya ay sii korodho oo aan xayiraadaha la qaadin su-aashaasi ayaan weydiiyey cabdiraxmaan sheekh cusmaan oo dhaqaalaha bartay degana magaalada London korokacan cusub ee dib u soo kacay cudurkan corona wadanka Ingiriiska qaybta dhaqaalaha ee aadka ugu saameynaya waxa weeyaan dhinaca dalxiiska iyo diyaaradaha maadaama wadanka kaliya ee dadka Ingiriisku ay fasaxa soo diyaarinayeen uu yahay wadanka Boortaqiiska oo kamid ahaa wadamada la ogoliyay in loo dalxiiska tago aan hadda laga saaray wadamadaas sidoo kale waxa la rajeynayay wadamo badan oo kale in dawladda Ingiriisku ay golaan doonto in dalxiis loo tagi doono ama laga iman karo laakiin arintaas may dhicin oo wadan cusub laguma soo dirin wadamada la ogol yahay marka dhinaca dalxiiska iyo diyaaradaha waxay aad isugu diyaarinayeen xilligan xagaaga oo dadku aad u safraan oo xilliyada fasaxyada la qaato ah in dhaqaalo badan uu kasoo galayo gaar ahaan magaalada London iyo bartamaha magaalada London oo 80% wax ka badan ku tiirsan dadka dalxiisayaasha adduunka daafiisa ka yimaada inkastoo dhinaca kalena dhinac wanaagsan ay ka leedahay oo dadka Ingiriiska joogay gudaha wadanka ku dalxiisayaan markaa shirkadihii qaybaha kala duwan ee magaalooyinka wadanka Ingiriiska ay dadku dalxiis tagi karaan oo iyagu ka faa'iiday halka ay dadku banaanka aadi lahayn ay gudaha ku dalxiisayaan marka guud ahaan dhinacaas dhaqaalaha dalxiiska iyo diyaaradaha ayaa saameynta ugu weyn ku dhacaysa xaaladaha mandaqadaha Scotland iyo waqooyiga Ireland madmadow ayaa ku jira dadka uu xanuunku ku dhacay Scotland way kordheen toddobaadyadii ugu dambeeyay dabayaqadii bishii May 150 qof ayaa xanuunka laga helay iyada oo 3850 qof uu mid xanuunku hayo walaashkana 680 qof ayuu xanuunku soo ritay xogayaha caafimaadka Britain ayaa isagoo warbaahinta la hadlaya sheegay inuu aaminsan yahay in ay yaraan doonto fursadaha ay dad badan in noqolka Hindiya cusbitaal ugu gali karaan waxa uu ugu baaqay dadweynaha in si dheeraad ah loo ilaaliyo dadka waayeelka ah sidoo kalena mashruuca talaalka la gaarsiiyo caalamka oo dhan marka dad badan dunida la talaalana waxa uu yiri waxa imanaysa inuu xanuunku sii yaraan doono Professor magaciisa la yiraahdo Bob Hunter kana shaqeeya jaamacadda East Anglia ayaa sheegay in warbixinta ay ilaa iminka hayaan iyo daraasadaha ay ururiyeen ay adag tahay in lagu ogaado in xanuunka nuqulka Hindiya oo iminka Ingiriisku u bixiyay Delta uu keeno xanuun badan oo khatar dadka gelin kara iyo in kale marka loo eego noocyadii hore loo yaqaanay waxa kale oo uu sheegay in ay aaminsan yihiin haddii uu qofku qaato talaalka labadaba ay adag tahay inuu qofku qaado nuqulada loo bixiyay Alpha iyo Delta oo markii hore lagu arkay Hindiya iyo magaalo xeebeedka Dover oo ku taala koonfurta dalka Britain dawladdu waxa ay ilaalinaysaa toddobaadyada soo socda ka hor 22 bisha sida ay wax noqdaan Cabdi Xaafid Cawd Ismaaciil VOA London Soomaalida dalka Canada ayaa ka walaacsan dilalka dhalinyarada oo wali sii socda iyadoo dilalkaasi qaarkoodna lala xiriirinayo dhalinyaro kale oo Soomaali ah ugu yaraan 3 dhalinyaro Soomaali ah ayaa lagu dilay magaalada Toronto oo kaliya tan iyo bilowgii sanadkan wariyaheena Xuseen Nuur Xaaji ayaa warbixintan nooga soo diray magaalada Toronto dilalka dhalinyarada Soomaalida ee dalkan gaar ahaan gobolada Ontario iyo Alberta waa kuwa soo jiitamay in muddo ah Soomaalida qaar ayaa wado dadaalo aanan marnaba ka soo bixin wax natiijo ah
dalalkii ugu dambeeyey ee ka dhacay magaalada Toronto ee bilihii Abriil iyo January ee sanadkan oo lagu kala dilay Allah u wada naxariistay Habiil Cabdullaahi Xasan iyo Haashim Cumar Xaashi ayaa labaduba loogu shakisan yahay laba dhalinyaro oo Soomaali ah oo booliisku ay baadigoobayaan. waxaase jira dad kale oo aan Soomaali ahayn oo loo qabtay dilalkan. haddaba Soomaalida dalkan gaar ahaan kuwa magaalada Toronto ayaa ka walaacsan in dilalku ay wali socdaan haddana kuwa looga shakinayo ay noqdaan Soomaali kale. Yuusuf Abikar Cali waa aabe muddo degan magaalada Toronto. wiil uu dhalay oo la dilay bartamaha sanadkii tegay ayaa ka mid ah dhalinyarada Soomaalida ah ee lagu dilay dalkan. wuxuu nasiib darro ku tilmaamay in dilalku ay wali socdaan misana loo raadinayo dhalinyaro kale oo Soomaaliya. runtii waxa ayaan dara ah in maalin kasto wiilasheena yaryaraa ee aan islahayn ayaga ayaa idin duugi doona in maalin kasta la dilo. si darada weyn ay tahay dilalkaas oo mar walba loo aaneeyo inay ayaga isdilaan. runtii aniga ahaan maadaama wiilkayga magaaladan lagu dilay waxaan qabaa midda keliya looga badbaadi karo dilalkan ay wiilasheena hubka isku haystaan in aan annaga ka Soomaali ahaan aabbayaal ahaan hooyooyin ahaan ka midowno oo aan meel ka wada istaagno oo aan caruurteena maaragtay warqab badan aan u qabno. waxaan aaminsanahay dil dambe waxaan rabnaa aniga inuu ugu dambeeya wiilkayga maxamed ilaahay u naxariisto oo aanan qaf dambena laga dilin. dad badan ayaa qaba in shaqo la'aanta haysata dhalinyarada iyo waxbarashada oo qaarkood laga yaabo inaysan dhammaysan ama aysan u suuragelin inay waxbarashadooda jaamacadda ay sii wataan ay ugu wacan tahay dhibaatooyinka. gudoomiyaha golaha Soomaalida gobolka Ontario Abukaate Cabdullaahi Barre Wall ayaa ka mid ah dadka sidaasi aaminsan. waa la soconnaa in wiilal badan oo Soomaali ah halkan lagu dilay gaar ahaan Alberta iyo Ontario. marka dadkii dilayna muxuu ahaay hadda waxaa la leeyahay in lagu tuhmayo wiilal kale oo Soomaali ah inay dileen. marka dilalkan joogtada ah ee lagu hayo wiilasha Soomaalida ah aniga haddee waxay ila tahay sababuhu waa badan yihiin oo dilalka keenaya. sababta ugu weyn waxay tahay saboolnimada iyo dakhliga oo hooseeya. marka xalka ugu weyn oo loo xallin karo waa in sababta la cirib tiraa, waa in shaqo abuur loo sameeyaa, waa in la mashquuliyaa wiilasheenna muxuu ahaa lagu mashquuliyaa waxbarasho iyo shaqo. xildhibaan Faysal Xasan oo laga soo doorto xaafadda York South Western ee magaalada Toronto oo Soomaali badan ay degan yihiin ayaan weydiiyey sida wax looga qaban karo dhibaatooyinkan aan joogsiga lahayn. arrintan Xuseen waa arrin in dowladda soo socotay. runtiina waxaa loo baahan yahay si wada jir ah in laysaga kaashado, loo wada shaqeeyo, hadday noqonayd waalidiinta, hadday noqon lahayd macalimiinta iyo dowladda roolkooda oo meeshan gabay oo loo baahan yahay marka ugu horeysa in la garso, la fahmo sababta ugu weyn caruurteenu ay u dhimanayaan maxa ay tahay. hadday tahay keliya midabta koor waxaan u baahnay inaan soo afjarno. haddii ay tahay arrin ku salaysan maalgelin la-aan, waxbarashadoodii ay daciif tahay, waxbarashadoodii la dayacay, ay tahay shaqo la-aan, waxyaabahaasna waxaan u baahannaha inaan maalgelin xoogan oo aan loo baahan in la saaro. haddii arrintan ay tahay arrin saboolnimada ku salaysanna inaan markaa arrintaasna aan investment xoogan oo maalgelin dheerna la sameeyo si markaas nolosha dadka kor loogu qaado. kadibna waxaan filayaa markaas laakiin ta ugu horeysa waxay noqonaysaa inaynu darisno, fahano sababta caruurta ay u dhimanayaan. markaas ayaan xal waara oo la taaban karo oo taabagaala aynu gaari karayna. xilli sii horreysay wasiirka qoyska, caruurta iyo horumarinta bulshada ee Kanada xildhibaan Axmed Xuseen oo xisbigiisa liberaalka uu hayo talada dalkan ayaa waraysi uu siiyey VOA Soomaali ku sheegay maruu ka jawaabayay su-aal ku saabsanayd dilalka dhalinyarada in dowladda federaalku ay mamnuucday qoryaha darandooriga u dhaca, sidoo kalena ay lacag badan u qorshaysay in shaqooyin loogu abuuro dhalinyarada si looga weeciyo dhibaatooyinka ay dilalka ugu horeeyaan. Xuseen Nuur Xaaji, VOA, Toronto. haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna voasomali.com. bogga voasomali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA. waxaana ka mid ah oo ugu horraynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah
faaqidaadda toddobaadka martida maykarafoonka cawayska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya gobol ka mid a dalka Shiinaha ayaa soo bandhigay qaabkii ay saboolnimada uga saareen bulshooyinka ku dhaqan tuulooyinka gobolkaas. kulankaasi waxaa lagu casuumay arday Soomaaliya oo wax ka barta waddanka Shiinaha. wariyaha VOA Ibraahim Cumar Baafe ayaa warbixintan Melbourne ka soo diray. kulankan oo lagu qabtay tuulooyin hoos yimaada gobolka Zhejiang ee dalka Shiinaha ayaa lagu soo bandhigay qaabkii Shiinaha uu ula dagaalamay saboolnimada 40 sano ka hor dadkiisa iyadoo kulankana lagu casuumay arday wax ka barata jaamacadaha waddankaasi si ay khibrad uga helaan sida ugu dhow ee loo suulin karo faqiirnimada bulshooyinka haysta. haddaba kulankan waxaa ka qayb galay Cabdulqaadir Maxamed Siciid oo ka mid ah ardada Soomaalida degan dalka Shiinaha. Ibraahim oo aad iyo aad u mahadsan tahay kulanka ciwaankiisu wuxuu ahaa China khibradii iyo guulihii ay ka gaartay la dagaalanka saboolnimada. waxaan ognahay in China 90meeyadii iyo 80meeyadii ay dadkeedu dad aad iyo aad sabool u ahaayeen. kulankana waxaa qaban qaabisay dowladda China khaasatan gobolka aan joogo ee Zhejiang. wuxuuna ka dhacay tuulooyinkii ugu horeeyay ee laga bilaabay la dagaalanka saboolnimada. tuulada magaceeda waxaa la dhahaa Wui. horta gobolku wuxuu ku yaalaa koonfur bari hadeerna wuxuu ka mid yahay gobolada ugu qanisan ama ugu lacagta badan ee China oo Chinese kale ay u soo shaqo tagaan macad. yaa ka soo qayb galay kulanka marka laga reebo ardadiina? kulanka waxaa ka soo qayb galay dad ka socday oo heer degmo iyo heer gobola oo ka socday dhinaca China iyo professoro iyo macallimiin ku takhasusay khibradna u leh la dagaalanka saboolnimada una dhashay degmadaas aanu tagnay. Cabdiqaadir, dadkan aqoon-yahanada aad sheegtay ee ka waramaya qaabka ugu sahlan ee saboolnimada dadka looga saari karo ee goobta ka hadlay, haddii aad dhegeystayaasha u sharaxdo wixii ay halka ka yiraahdeen, bal soo dhawow. haddii aan dhegeystayaasha horta u sharaxno saboolnimada maxaa lagu qiyaasaa, sida ay qaramada midoobeyn u dejisay cabirka saboolnimada marka lasoo gaabinayo loo yaqaano MPI oo la dhaho multidimensional poverty index. waa inuu ka hooseeyo qofka wuxuu isticmaalo maalintii $1. haddii uu $1 ka sareeyana qofku wuu ka baxsan yahay cabirka saboolnimada. waxaa xusud mudan dadka degan tuuladaas inay uu ahaa cabirka ay lacagta ay isticmaalaan maalintii wax ka yar $1 oo $0.5 ah. isku celcelis sanadkiina ay soo gasho lacag u dhiganta $200. maxaa kaaga baxay Cabdulqaadirow qaabka saboolnimada dadka looga saari karo markaad eegto dalka Soomaaliya iyo weliba dadka saboolka ah ee ka qatan kheyraadka dhex ceegaagan dalkooda? Ibraahimow, waa su-aal aad iyo aad u muhiim ah. horta arinta ugu muhiimsan waxay tahay in la helo nabad, lana helo hoggaan daacada oo u yimi inuu dadka noloshooda wax ka bedelo ee aan u iman inuu dadka ka shaqaysto. markaa kadibna la wajaho magaalo kasta ama qof kastoo baahan ama sabool ah dhibtiisu meeshay ka timi. kasoo qaadoo kale dadka jowhar degan oo kale waa dhul beeraleeya, laakiin sanad kasta fatahaad baa ku dhacda. beerahoodii ay beerteenna suuqay u iibgeeyaanna ma haystaan. dowladda markaasoo kale waxaa laga rabaa inay dadkii ay u sahasho inay helaan qalabkii ay wax ku beeran lahaayeen, mirihii, kadibna ay u samayso wadooyinkii ama transportationkii ay alaabahooda kusoo qaadi lahaayeen oo suuqyada kale ugu iibgeyn lahaayeen. adiga marka kulankaasi maxaad dib ugula soo laabatay oo aad ka soo faa'iiday ka Soomaali ahaan?
waxaan isleeyahay waxa ugu weyn oo aad kala laabatay waxay tahay rajo. waxaan isleeyahay markay aragtid dadkan Chinesku saboolnimadii ay soo mareen iyo meeshay ka yimaadeen iyo markaan eegno Soomaaliya hadda meeshay ku sugan tahay waxaa la isdhihi karaa waxaa kusoo galaysa rajo aad iyo aad u weyn. marka waxaan kala laabtay kulankaas anoo ku rajo weyn in Soomaaliya maalin maalmaha ka mid ah ay ka bixi doonaan saboolnimada. Oktoobar sanadkii hore Shiinuhu waxa uu shaaciyay in 100 milyuun oo qof oo sabool ah inay ka ciribtireen islamarkaana ay u abuureen shaqooyin maantana ay ka mid yihiin bulshooyinka ladan. Ibraahim Cumar Baafe, wararka VOA, magaalada Melbourne, dalka Australia. markana dhinacii heesaha waxaan idiin soo qabanaynaa codka macaan ee Allah u naxariistay Faadimo Qaasim Hilowle. idaacadii subaxnimo ay si wada jir idila socodsiinayaan anigoo Jamaal Axmed Ismaan iyo Falastiin Axmed Iimaan. dhageystayaal waa naga intaa tan iyo kulan dambe nabadgelyo. xiligan dhexdiisa intaan xaasha ku dhigeen xisaab lagu magaa